waxaan u mahadnaqayaa cid walba ka qayb qaadatay xeerkeennii xeer ciise aabbayaashii looga tegey oo maanta xeer ciise qaatay xeer Soomaali noqday xeer caalami oo noqday iyaan cid walba ka qayb qaataan baan celinayaa bulshada Soomaaliyeed meel walba ay joogaan dhan waa xeer noo wada yimiday hambaliyaan dheer intaa kadib saddexda waddan ee ka qayb qaatay inuu xeerkan u dhaqan galo dowladda Jabuuti Soomaaliya iyo Itoobiya aad baan ugu mahadcelinayaa ururka sidoo kale City Heritage isagana aad baan ugu mahadcelinayaa ay ayaanay guddoomiye ka tahay waan u mahadcelinayaa shacabweynaha sharafta leh ee ka soo qayb galay ee dhaqankoodii iyo xeerkoodii maanta muujinayaan aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa insha Allah intaa kadib waxaan qorsheynaynaa ku helayaa sanad walba in maalintii dhaqanka xeer ciise uu ka dhaco Dodoma insha Allah waana u diyaargarowday sidaa fiican ee dhalinyarta sharafta leh hooyooyinka gabdhooyinka aad xeerkiina u muujiseen ee dhaqankiina u muujiseen ee midnimadiina u muujiseen aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa insha Allah waxaa intaan ku darayaa sidii ay sheegeen madaxdii nagu horreeyey inuu xeerku uu dhaqan galo ama uu la kobciyo in manhajka waxbarashada lagu daro jaamacadaha Dodoma iyo ka Jigjiga way ballan qaadeen sidoo kale ka Jabuuti waxbarashada hoose meel walba in lagu daro buugaan laga daabaco ayaan ka codsanaynaa xeerkan iyo dhaqankan sare loo qaado insha Allah intaa kadib waxaan ku soo xirayaa ducada aan ugu horeysiinayo aabbayaasheenii xeerkana maanta ku faanayno noo hirgeliyey maanta naga hooseeyaan ilaahay u naxariisto naxariistana Allaa geliyo intii ay ka tafiirmeen iyo intii ay ka tafiirmaba ilaahay u naxariisto wixii naga gudiyooda dhammaan ummadda Nabi Maxamed intii gudiyooda ilaahay u naxariisto ilaahay midnimadeena noo adkee waddankeena Itoobiya ilaahay nabadgelyo nooga dhig Soomaalida meel walba isku leynaysa ilaahay nabadgelyo dhex dhig ilaahay nabadgelyo ka dhig